Bismillahirrahmanirrahim. Casharkani wuxuu ku saabsan yahay Sales Return Daybook. Hore waxaynu ugu soo jirnay Books of Pre-Entry. Imikana waxaynu eegi doonaa Returns Daybookiska sida Saleska iyo Purchase Returnska. Marka waxaynu u baahannahay Ledger Accountskii Sales Daybookiska iyo kii Purchase Daybooka sidii aynu hore ugu soo aragnay Receivableskii iyo Payable Controlkii ee casharadii hore. Marka waxaynu ka soo qaadan doonaa numberska aynu uga baahannahay labada cashar ee hore. Waxaanan idin tusi doonaa sida loogu boos-gareeyo Control Accountska iyo Subsidiary Ledgerka sidoo kale. Fadlan subscribe tahay laawina gambaleedkana inoo fura si aanay idiin dhaafin fiidiyoyada dambe. Haddaba aynu eegno marka ugu horeysa Sales Return Daybookiska. Sales Returns Daybookisku waa marka aad iibisid lagugu soo celiyo ee ay customerskaagu kugu soo celiyaan. Haddii aynu xasuusanno Sales Return Daybookiska waxaynu hore u nidhi waa liiska credit noticeska ee loo diray customerskeena. Markaa waa liistiga credit noticeska ee aynu u dirnay customerskeena haddii ay customerskeenu alaab inagu soo celiyaan ku lahaan mayno lacagtii aanu hore ugu lahayn ee invoicekii aynu ku siinay credit noticekii aynu aragnay. Markii hore wuu isbedeli doonaa waayo waxaa laga jari doonaa intii ay inagu soo celiyeen customerskeenu. Sales Returns Daybookisku wuxuu ka soo horjeedaa ama opposite uu ku yahay Sales Daybookiska. Haddaba aynu eegno notekan waxay isku eeg yihiin sidii kuwii hore aynu ku soo aragnay. Halkii invoice numberska waxaynu u bedeli doonaa credit note number. Kanna hore ayaynu u soo aragnay oo waa customer Chris. Waxbana iskamay bedelin magacii. Waxa aynu credit noticeska gelinay oo uu soo celiyey net amount ah $50. Waxaynu haysanaa sales tagas sidoo kalena gross amountiskii. Waxa aynu ognahay in aynu hal credit note oo keli ah aynu bixinay wiigii ugu dambeeyey December. Marka uma baahnin in aynu soo qaadano customerskii wax inaga iibsaday oo dhan waayo wax inagu soo celiyey waa hal customer oo keliyaata. Haddii ay hal customer ka fara badnaan lahaayeen waxaynu soo wada dhigi lahayn totaliskooda Ledger accountkeena si aynu ugu boos-garayno. Haddaba waxaynu ku boos-garayn doonaa Ledgerkeena totalka. Waxaynu nidhi returnsku waxay opposite ku yihiin saleska. Haddii aynu eegno double entrygeenu siduu noqon doono waxaynu reverse ku samayn doonaa amba isweydaarin doonaa debit sidekeena iyo credit sidekeena. Halkan net amountiska inoo qoran waa $50. Marka aynu samaynayno sales income waxaynu credit garaynaa incomeka saleskeena waxaanu ka kordhaa dhinaca credit sideka. Imika waxaynu helay returns waa in aynu debit garayno si aynu uga yarayno incomekeeni statement of comprehensive incomeka. Halkii markii hore aynu credit garaynaynay saleska imika waxaynu debit garayn doonaa Sales Returnska. Waxaanaynu raacin doonaa expenses accountska. Waxaynu doonaynaa in credit noticekan aynu ka saarno saleskeeni. Marka aynu ka shaqaynayno statement of comprehensive incomeka saleskeena waxaynu dhignaa xagga sare kadibna waxaynu ka jarnaa Sales Returnska. Markaa waxaa inoo soo baxaa net saleskeena oo ka soo horjeeda cost of saleska markaas oo aynu halkaa ka helo gross profitkeena. Sales Returnsku markaa waxay yaraynaysaa incomekeena sanadka. Taasina waa
waxyaabaha ay ritanisku ama alaabaha lagugu soo celiyo ay kugu keeni karto. Iminka marka aynu samaynayno credit sales waxaynu ognahay in ay liability inagu tahay sales tagaska aynu dadka ka qaadnay oo aynu payable ahaan u hayno intii sales tagaska aynu charge garaynay customerskeena. Marka haddii customer invoice-ka loogu daro sales tagas waxaynu ogsoonahay in ay payables jiro oo marka kaashka aynu ka helo customerska aynu bixin doono sales tagaska ama tagas local authority-ga. Marka waxaynu iska yarayn doonaa liability-ga oo waynu dhibid garayn doonaa si aynu u yarayno sales tagas control accounts-ka. Haddii aynu xasuusanno marka aynu samayno credit sales waxaa badata liability-ga laynagu leeyahay ee sales tagaska halka sales returns-kuna uu opposite-kiisa uu yahay oo uu yaraan doono markaana aanad bixin doonin sales tagas fara badan. Total gross amount-kaaga haddii uu customer-kaagu kugu soo celiyo alaab kuma lahaan doontid lacagtii alaabtii uu soo celiyey waayo wuu soo celiyey alaabtii aad ku lahayd. Markaa si aynu u helno result sax ah waxa aynu yarayn doonaa credit asset-keena receivable control accounts-ka. Haddii aynu xusuusanno receivable control account-ku waa asset waxaynaynu geyn doonaa statement of financial position-ka ee manager-keena. Waxaanad ogaataan in labada dhibid ee sales returns expenses-ka iyo sales tagasku ay la mid yihiin creditka receivable control-keena. Waxaynu isticmaali doonaa sharcigii ahaa wax kasta oo lagu boosgareeyo receivable control account-ka waa in uu tago subsidiary receivable ledger-ka. Markaa sidoo kale waynu credit garayn doonaa customer credit account subsidiary sales ama receivable ledger-ka. Markaa waxaynu imika u baahannahay example-keenii amba casharkii aynu ku soo qaadanay sales daybooks-ka. Haddii aynu xasuusanno waxaynu haysanay receivable control account oo aynu ka bilownay debit side-ka oo aynu ku soo boosgaraynay sales daybooks-ka. Haddaba control accounts-kan waxaynu doonaynaa in aynu ka yarayno asset-ka sales returns daybooks-ka. Total amount-ka la soo celiyey oo ah $750 iyo badh. Taasina waxay wax ka yarayn doontaa amount-kii aynu ku lahayn customer-keena. Haddaba haddii aynu dhignay credit control accounts-ka waa in aynu sidoo kalena credit garayno customer credit account ee aynu hore u haysanay. SRDB waxaynu u soo gaabsan doonaa sales return daybook. Gross amount-kii credit note-kuna wuxuu ahaa $750 iyo badh ee aynu ka yaraynaynay amount-kii aynu credit ku lahayn. Markaa waxaad xasuusnaataan in returns-ku ay yareeyaan receivable control account-ka iyo subsidiary ledger account-kaba. Iminka waxaynu soo samaynay sales return daybook. casharkan ku xigaana insha Allahu wuxuu noqon doonaa purchase return daybooks. Aad ayaanad u mahadsantihiin dhammaantiin.